ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. Anshaxa 11 waa shaqada guriga ayaan ka qayb galnaa. Bar ilmahaaga shaqooyinka guriga sida loo qabto. Shaqooyinkaas waxay ku baranayaan mas'uuliyadda wuxuuna ilmaha yari ku kasbanayaa xirfadaha muhiim u ah nolosha oo si wanaagsan ugu adeega inta uu nool yahay. Tusaale ahaan, gaarista guulaha yaryar ee ah marka uu shaqo soo dhameeyo waxay siinaysaa dareen ah in uu guulaystay. Taasina waxay u horseedaysaa sida guulaha waaweyn loo gaaro. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Shaqada guriga ayaan ka qayb galnaa. Shaqada guriga ayaan ka qayb galnaa. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.